بسم الله الرحمن الرحيم داود halkaan nagala socotaan barta YouTube kulana cala soo boostaadyo jir waxaan naga bartay wararka caalamka gaar ahaan sida Carlos Iran iyo Russia qodobada waaweyn wararka caalamka waxa kamid ah daawayaal madaxweynaha dowladda Mareykanka oo ka soo kicitay magaalada Washington soo ka soo beegay dalka Belgium ka gaar ahaan caasimadda Brussels halkaas oo wararada midowga oo ku boobay neeta ay halkaas ku leeyihiin shirkaas laga haraysan doono xaaladda Ukraine iyo Russia waxaana baaqooda ku saaran doonaa si sheegeen ilaa caawa ay ku saaran doonaan war saxaafadeed laakiin madaxweynaha dowladda Mareykanka hore wuxuu sheegay xaaladda inta safarka soo galay bartiisa Twitter soo dhigay oo cadeeyay in cunaqabateyn hor la saaran doono dowladda Ukraine dhaqaale uu saxay dhawaan la soo fasixin doono asii dowladda Russia ayaa la tacaalaysa dhaqaale xumo soo wajahday dagaalka ay ku jirto dalka Ukraine cunaqabateyn baan ay reer saareen ayaa ugu baaqday dowladaha midowga Yurub inay ku gataan gaaska dalka Russia lacagta dowladda Russia ee magaceeda Rubiya daawayaal kusoo dhawaada wararka caalamka gaar ahaan sida Carlos Russia iyo Ukraine ciidankii Checheniyiinta oo la holi waayay dagaal culus oo ka socda bariga iyo waqooyiga bartamaha dalkaas daawayaal magaalooyinkii dalka Ukraine oo badankooda dhulka laga simay magaalada liira magaceeda Maribo oo go'doonsan oo xaalad beelaan wuxuuna ay ka taagan tahay halkaas oo boqolaal kun oo shacab ay ku go'doonsan yihiin gantaaladii Ruushka oo la holi waayay gantaalka la yiraahdo hypersonic oo dowladaha reer galbeedka ka qeyliyeen inkastoo shirka gaashaaniga Mareykanka waxa la hadlay uu yiri ma lama baahnayn gantaalka in lagu rido Ukraine maadaama laga soo riday yiri meel dhow daawayaal xaaladda faraha ay kasii baxaysaa madaxweyne Putin afayeenkiisa ayaa xal waxa horeystay CNN-ka aninka bur waxaana la weydiiyay ma laga yaabaa inaad adeegsataan hubka nuclear-ka wuxuuna yiri taas markii loo baahdo waa macquul laakiin si waxa hadda kaliya dowladda Ruushka oo u banaan inay tahay inay baabiiso ciidankii Ukraine oo isdhiibi waayay inuu adeegsato sun kiimika daawayaal ciidanka Checheniyiinta ayaa la arkayaa ayagoo dagaal baan kula jira ciidanka dowladda Ukraine socodna ku ridaya baasukaha iyo qoryaha noocyadooda kala duwan ayagoo ku haya kelmadda weyn Allahu Akbar iyo bismillah ayagoo ku haya ayaa la arkayaa ciidanka Checheniyiinta waxa ka qeyliyay midowga Yurub waxay gaarayaan tiradooda ilaa 89 kun oo askari daawayaal